الانقلاب الأبيض في المملكة العربية السعودية. barnaamijkeena galabta oo ah mid ku meel gaara waxaynu kaga hadlaynaa waxa uu muuqda inuu yahay inqilaabka cad ee ka dhacay boqortooyada Sacuudi Arabiya. ماذا يجري في هذه المملكة؟ waa maxay waxa ka socda boqortooyadaasi? فأثقنا من النوم لا حتى على أنباء تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. hurdada ayaynu ka toosnay waxaynu ku waabarisanay iyadoo oo dhaxal sugaha boqortooyada loo magacaabay أمير محمد بن سلمان وعزل الأمير محمد بن نايف الذي كان يحتل هذا المنصب. لنا عسلي أو حلك اللي قاضي أمير محمد بن نايف أو حلك هي. وعزله أيضا من جميع مناصبه الأخرى بما في ذلك وزارة الداخلية التي تولاها في السنوات الماضية. sidoo kalena laga caslay dhammaan wixii xilka hayay boqortooyada oo ay ku jirto xilka wasiirka arrimaha gudaha taasoo shaqooyin badan ka qabtay guul weyn ka soo hoyay sida ay sheegeen tiro badan oo dadka la socda siyaasadda dalkaasi Sacuudi Arabiya. هذا ثاني ولي عهد يتم عزله في أقل من عامين. ودحل سويه labaad ee xilka laga qaado muddo 2 sano. markii hore waxa uu ahaa Mukrim bin Abdul Aziz maantana waxaanu joognaa Maxamed bin Naif. ما هي الخطوة القادمة؟ talaabada soo socota maxay tahay hadda? تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن العرش لابنه محمد بن سلمان. waxaan aaminsanahay taasi inay tahay talaabadii koobaad ee boqor Salmaan bin Abdul Aziz xilka uga tanaasuli lahaa inankiisa Maxamed bin Salmaan. وشيكا جدا. waana arrin muuqata oo soo dhow. أعتقد أيضا أن الأمير محمد بن سلمان أصبح على بعد. waxaan kaloo aaminsanahay in uu talaabo kaliya u jiro sidii uu qabsan lahaa ama u noqon lahaa boqorka boqortooyada Sacuudi Arabiya. هناك 3 شروط أساسية. halka waxa 3 shuruudood oo asaasi ah ama lama huraan ah أو موافقات أساسية. oo ku saabsan muwaafaqada ama ogolaanshaha أي ملك يتولى العرش في المملكة العربية. boqor kasta oo doonaya inuu qabsado xukunka boqortooyadaasi. وأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ضمن هذه أو موافقة هذه المؤسسات الرئيسية. waxana aan aaminsanahay in uu dhammaystiray muwaafaqada ama ogolaanshaha 3 qaybood. الأولى هي المؤسسة الأمريكية. ta koobaad waa dalka Mareykanka oo ay tahay inuu ogolaado qofka noqonaya boqorka Sacuudiga. الثانية هي الأسرة الحاكمة. ta labaadna waa qoyska boqortooyada. الثالثة هي هيئة كبار العلماء أو المؤسسة الدينية في المملكة. ta saddexaadna waa ogolaanshaha golaha sare ee culimada Sacuudiga. أنا في تقديري أن زيارة الأمير محمد بن سلمان قبل يعني بضعة أشهر وفي يناير الماضي وبعد تولي الرئيس ترامب السلطة. waxaan aaminsanahay in boqoshadii Amir Mohammed bin Salman ku tagay dalka Mareykanka bishii January xilligii uu xilka qabtay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. هذه الزيارة كانت التمهيد الأولي والرئيسي لمبايعة أمريكا لهذا التغيير وتخليها عن الأمير محمد بن نايف. waxaan aaminsanahay in boqoshada ahmiyaddeedu ay ahayd ogolaanshaha Mareykanku uu siinayay inuu xilka boqortooyada qabto iyagoo Mareykanku ka hoos baxay oo faraha ka qaaday dhaxal sugihii hore Amir Naif bin Abdul Aziz الذي كانت تعتمد عليه وتعتبره يعني نابغة وكفاءة عالية في محاربة الإرهاب حتى أن شائعات كثيرة أصبحت تقول أن محمد بن نايف هو رجل أمريكي. iyadoo Mareykanku markii hore ay si weyn isugu haleynayeen Mohammed bin Naif oo ay arkayeen in la dagaalamay waxa ay u yaqaanaan ama u yeedhaan argagixisada sidoo kalena ay soo baxayeen warar oranaya in Mohammed bin Naif uu yahay nin Mareykanka u shaqeeya. الخطوة الثانية أو موافقة أمريكا في تقديري تمت عندما زار الرئيس دونالد ترامب الرياض وشارك في القمم الثلاثة القمة السعودية القمة الخليجية القمة العربية والإسلامية. ogolaashihii labaad ee Mareykanku bixiyeen waxaan filayaa inuu ahaa markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo booqday dalka Sacuudiga kana qayb galay kulan madaxeedadii khaliijka carabta iyo islaamka. أعلن الأمير محمد بن سلمان في هذه القمم عن
رصد 460 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية، منها 110 مليار دولارات صفقات أسلحة. kulamada mid ka mid ah ayay ahayd meeshii uu amiir maxamed bin naif kaga dhawaaqay 460 bilyan ee dollar ee heshiiska sacuudiga ay kaga iibsanayaan qayb ka mid ah lacagtaasi hub dalka Mareykanka. والباقي استثمارات في البنى التحتية الأمريكي. هذا المبلغ هو ثمن تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العرش وربما أيضا العرش. dhaqaalaha inta leega Mareykanka wax laga iibsanayeen waxa uu ahaa qiimihii ay ku bixinayay maxamed bin salmaan inuu noqdo ama helo ogolaanshaha sidii uu noqon lahaa dhaxal sugaha boqortooyada ama boqorkaba. أما إذا انتقلنا إلى الأسرة الحاكمة فالإعلان الرسمي عن تعيين الأمير محمد بن سلمان قال haddii aanu u leexano ogolaanshaha labaad halka laga doonayo oo ah qoyska bayaankii lagu sheegay magacaabista amiir maxamed bin naif inuu yahay waliy al-ahdi amaba dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga. أن هيئة البيعة المكونة من 34 أميرا وافقت على هذا التعيين. waxaynu ku adkaynay in golaha doorashada ama golaha baayacada loo yaqaano oo ka tirsan 34 amiir oo qoyska boqortooyada ah in saddex ka mid ah mooyaane inta kale ay ogolaadeen in amiir maxamed bin salmaan uu noqdo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga. 3 أمراء فقط هم الذين لم يوافقوا. waxaana diiday oo kaliya saddex ka mid ah amiiradaasi. ولكن لم تعلن أسماءهم. laakiin laguma dhawaaqin magacyadooda saddexda amiir ee diiday. أنا في تقديري أو أنا هنا يعني أتكهن أن هؤلاء الثلاثة ربما يكون الأول هو الأمير طلال بن عبد العزيز أو الأمير الذي كان دائما ينتقد الممارسات الأسرة الحاكمة. shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay ama u malaynayaa in saddexdaa mid ka mid uu yahay amiir dalaal bin cabdilcasiis oo in badan dhaleeceeyay dariiqa maamul ee qoyska reer boqor ee dalka boqortooyada sacuudiga. ولم يكن راضيا مطلقا على تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد. waxaana uu ahaa amiir dalaal nin aan marnaba raalli ka ahayn oo ku qanacsanayn in amiir maxamed bin salmaan uu wali al-ahdi noqdo. وأيضا لم يكن راضيا أيضا عن الحرب في اليمن. sidoo kale amiir naif wuxuu si weyn uga soo horjeedaa dagaalka yemenka socda ee sacuudigu ay gacanta weyn ku leeyihiin. الأمير أحمد بن عبد العزيز هو أصغر أبناء أو ثاني أصغر أبناء الملك عبد العزيز. waxaan filayaa in amiirka labaad ee jiray uu yahay amiir axmed bin cabdilcasiis oo ah inanka u yar caruurtii uu ka tegay boqor cabdilcasiis boqorkii aasaasay boqortooyada sacuudiga. والثالث يعني لا استبعد أن يكون الأمير بندر بن سلطان أيضا عضو هيئة البيعة. كصدحاتنا وحن آمسناهي إنه يهي أمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أو كامل قولها سي بايعات أمام الدورشرة أو يسوق حكم كأوردنبا فرها كقاضي كنا سوغان دالك مراكو أو يسكدكي هاي. النقطة الأخرى ما هي انعكاسات هذه أو هذا التعيين؟ arrinta kale aan doonayna inaan ka hadalno waxay tahay waxyaabaha saameynta ku leh magacaabista maxal sugaha cusub ee Sacuudiga. على يعني الوضع الداخلي في السعودية. gaar ahaan dhanka gudaha marka ay arrintu noqoto. وما هي المفاجأة القادمة؟ أنا في تقديري أن دولة قطر ستكون من أكثر المتضررين بعزل محمد بن نايف لأنه waxaan filayaa in dawladda Qatar ay noqon doonto kuwa ay waxyeelada ugu badan ka soo gaadho casilaadii Amiir Maxamed bin Naif. كان صديقا ودودا وحميما waxa uu ahaa saaxiib dhow oo ay Qatar lahayd. وكان يمثلها أو يمثل مركز قوة لها في الأسرة الحاكمة السعودية. waxaana uu ahaa ninkii ugu dhex jiray qoyska reer boqor ee Sacuudiga. وأعتقد أن من أسباب عزله وبهذه الطريقة أنه كان يعني غير راضي على الإجراءات التي حصلت ومن بينها مقاطعة دولة قطر وحصارها مثل ما شاهدنا في الفترة الأخيرة. waxayna u eg tahay in casilaadiisu ay ku timi dabacsanaantii uu muujiyay dawladda Qatar iyo inuu ka soo horjeestay cunaqabataynta iyo cadaadiska diblomaasiyadeed ee lagu hayo. هناك أيضا انعكاسات إقليمية أخرى يعني لا نعرف الأمير محمد بن سلمان يعني رجل مندفع
يعني هو الذي أشعل حرب اليمن. waxaa jira saameyno kale oo runtii ay arrintaasi leedahay iyadoo aynu ognahay in amiir maxamed bin salmaan uu yahay amiir degdeg badan waa ninkii ee horreeyay dagaalka dalka yemen وأطلقها لقصف اليمن وقصف اليمنيين. waa ninka bixiyey amarada duqeynta lagu hayo dadka reer yemen. هو الذي أيضا أسس التحالف الإسلامي. waa amiirkii aasaasay isbahaysiga islaamka ee ka hortagga argixisada. هل نحن على أبواب حرب جديدة وأين؟ miyay tahay arrintu inaynu dagaal cusub geli doono mar haddii la magacaabay amiirkii dagaalada. ستكون قطر هي الحرب الجديدة مثلا. tusaale ahaan ma odhan karnaa gadar waxay tahay dagaalka cusub ee sacuudigu uu hogaamin doono. هي ساحة هذه الحرب. وما هي المفاجأة؟ maxayse tahay waxyaabaha cusub ee aynu arki karnaa. أنا لا أستبعد وركزوا معي أن يكون الانقلاب القادم برئاسة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. iska fogeyn maayo in inqilaabka kale ee cusub ee soo socda ee khaliidka ka dhacaya uu yahay mid ka imanaya dalka imaaraadka iyadoo amiir maxamed bin zaayid. وأن تتم الإطاحة أو عزل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات. oo maxamed bin zaayid uu samayn doono kaasoo lagu samayn doono amiirka imaaraadka sheekh khaliifa bin zaayid. أسباب مرضية. iyadoo loo adeegsanayo arrimo dhanka caafimaadka. الأمير محمد بن زايد ومحمد بن سلمان أصدقاء جدا. waxaynu ognahay in maxamed bin zaayid iyo maxamed bin salmaan ay yihiin laba inan oo saaxiiba oo isku fikrad